maalidu abaal ma leh wiilkan lagu magacaabo Amiin baraha bulshada ku soo gala Chunks kaasoo aan ognahay inuu yahay wiilasha ugu horeeyay ee baraha bulshada hadduu ahayn baka ugu horeeyay ee baraha bulshada qaasatan YouTube-ka adduunka bara Soomaalida wiilkan heer wuxuu gaaray bartiisa Twitter-ka oo iska xiro wiilkan caanka ah ayaa guursaday Soomaalidii laakiinse sidii oo ka filayay maysan ugu hambayn wiilkan way aflagaadeeyeen xaaskiisa wax ka sheegeen waxayna dhaheen muxuu guursaday way cadaan muxuu guursaday gabar Soomaali ah oo waliba degan carigaas Mareykanka qaasatan gobolka Minnesota meherkeeduna uu yahay 300,000 sidoo kalena baawur qaali ah oo lagu magacaabo G-Wagon sidoo kalena meherka oo ugu daray intaas oo lacag ah muxuu ugu bixiyay ay dadka qaar soo qoreen xataa waxay gaartay qoraaladii iyo aflagaadadii dad badan oo baraha bulshada caanka ah oo Soomaali ahayn waxaana ugu horeeyo Cali Dacwa kaasoo akhriyay qoraaladii ay u qoreen Soomaalidu wiilkan Soomaaliyeed couldn't have gotten himself a 910 aristocratic beautiful Adan princess. Adan means a white person, princess from Kensington, but allegedly decided to settle down with a 2 out of 10 Bomalian, mocking Somalis. Yeah, these things can destroy households. How would you want to be a part of destroying a household? Chunks wuxuu sheegay inuu baraha bulshada soo dhigi doonin familkiisa iyo xaaskiisa asagoo mar ka hadlayo podcast. And also it's like you have to have some type of hishad. We call it hishad in the Somali, and it's like have some type of respect about your life, you know what I mean? I don't want to showcase my wife and everyone see her and that's Chunks' wife. In my life, inshallah, if I get married, take a picture of my girl like this and then put it on. wiilkan sidoo kale wuxuu ka baxay fanka asagoo waliba heer sare ka gaari kara heesihiisana ay qarxi karaan ay fan ka baxay wuxuu soo jeestay kaliya inuu podcast duubo sidoo kale barnaamijyo sporti ku saabsan qaasatan kubadda cagta gabar wuxuu guursaday Soomaali ah jaamici ah sidoo kalena dhaqan ayuu guursaday maxaa ka fiican Soomaalidii ayaa aflagaado iyo qabiil iyo waxaan loo joogin galay sida ognahay gabdhaha Soomaaliyeed in qaali yihiin awal dhaqankeennii hore 100 halaad ayaa laga bixi jiray maanta maxaa isbedelay